بسم الله والي مغرب فيها بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمان كساقب قلاشة مرتشرف ككل دوان وحالك كسر دويننا كقب قلك عندك لسه قب قشين حرنت أوغال يوعي قلت أقوم بعض قابضة يسميسي تاسو ما تنكو بلنسهل أنا واقب قلنا دوت عوان كيدو يهي سامينت إسماعيل كل هذا وحبط الشذا سامينت إسماعيل كل وحبط الشذا ودكتي هنا قفك وحبط مادي علم وحربها هذا معنى قفك سامين بوكي يلا نساء سياسة أودي دودا سبحانه فلقين دونات لك أخواني وبين الصوماليات دكاترة كوح أقوياء كقلية الصومالية كميدة مركا إن شاء الله تعالى وحين كليهين دكتور شيخ محمد شبلي دكتور صادق ينو دكتور عبد الوهاب دكتور إبراهيم بن سليد ما توسل وينيا كلمة أبوها الرئيس إن شاء الله تعالى وحنسيد دونا قادية سوق داخل وفر إن شاء الله تعالى مركو حاليا مدن كسدوا نكل إلى عبد الشيد دقفل نكسدوا أنجعلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم صاحبك الشيخ دكتور أبو مدعينيا هذا ما هو كسر ويننا مستر عبد الله الدهي سؤال فافاهي بل أجيدنا أنه كلام نهاي دودا ما أنت أنا قوانينه يوحى حرمت أوجد النهاي دودا ما عانوا كلا بدنا كسر ويننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن يالي مروين dadka sharafta leh ee ka soo qayb galay kulankan maanta bandhig cilmiyeedkan dhamaantiin waxaad ku soo dhaweynayaa kulankan anoo u mahad celinaya dhammaan marti sharafta rag iyo dumarba culimiya caamaba macallimiin iyo arday waxaa si gaar ah maanta noogu marti qaadan sida halkan ka arkaysaan ama hore lagu soo sheegay aqoon-yahanada Soomaaliyeed ummadda dhexdeeda ku leh magaca annagoo doonayna in laga faa'iideysto oo aynu ka kala faa'iideysano qolada kale waxay ku dhaanto waxaan doonayaa inaan si kooban u dulmaro ujeedooyinka aanu ka leenahay arrintan iyada ah ama kulamada noocan ah iyo forumska xarinta ogaal waxa la aasaasay oo si official ama si rasmi ah loo daahfuray 15 July ee sanadkan ama bishii 17-keedii baa waxa lagu daahfuray halkan aan joogno ayaa lagu daahfuray qayb idinkeeda kamid ah way ka joogeen maanta ka soo qayb galeen waxa kale oo iyadana mudan in la xasuusto muddo fara badan ayay ka shaqeynayeen in la furo xaruntan dhalinyaro Soomaaliyeed oo intooda badan degan magaalada Nairobi arintuna waxay ahayd muhiimadda in la helo xarun aqoonta iyadoo kaashanaysa wacyi gelisa ummadda si kale haddaan u dhigo in aan sameeyno wacyi gelin bulshada aan u sameeyno sababtu waxa weeye dadka Soomaalida waxa lagu qiyaasaa inay yihiin dadka ugu hooseeya xagga wacyiga adduunka inay sidaa tahay waxa la daliil looga dhigaa dalkeedu sida uu yahay ama regionka ay ku nooshahay qaybaha kaga nooshay dhibaatooyinka ka jira ayaa daliil wuxuu u yahay wacyigeeda inay hooseyso waayo ummad wacyi leh oo isla xisaabtan iyo danteedu waxay tahay taqaana sidayna u burburnay uma burburto qaxootiga qaxa tahriibka faqriga jahliga dhibaatooyinkaas oo dhan wacyiga hooseeya ayaa qayb ka ah lama oran karo kaligiis baa ah laakiin factors badan baa jira dabcan laakiin waxaan isniri maadaama meelo fara badan laga eegi karo mushkilada xalkeeda annagu waxaan ka gashaan dhinaca wacyiga oo bal dadka in la wacyi geliyo
marka arrintaasi ku saabsan tahay wacyigelinta marka waxa u asal ah aan doonaynaa in base looga dhigo in aqoon baaris macnaha waa awareness iyo wacyigelin lagu base gareeyay cilmi baaris macnaha qofku waxa uu soo baaray oo ogaaday inay tahay dhibaato ummadda haysa in social phenomena ummadda hor yaala oo marka mushkilo ku ah qofku inuu intuu iska soo istaago iska hadla maaha isagoon ogeyn inay dhibaato tahay jirta inuu baaritaan sameeyo baaritaankaas isagoo u maraya hababka iyo methodska loogu talagalay in lagu ogaado oo maaragtay scientific research lagu sameeyo kadibna uu markaa soo bandhigo oo conclusionkii iyo wixii uu helay uu ummadda la wadaagay yiraahdo Soomaaliya waxaan ogaanay dhibkaas inuu haysto xalkuna waa kan isaa ula socda marka waa wacyigelin ay u tahay saldhig cilmi baaris asalka iyo tiigsiga xaruntu waa sida visionkeedu waxa weeye markaa in la helo dad Soomaaliyeed oo wacyi leh oo go'aanada ay gaarayaan ku base gareeya ama ku saleeya maxaan ku radaa aqoon marka dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha haday ahaan lahayd dhaqaalaha ijtimaaciga siyaasadda dhinac walba culture iyo dhaqanka in ummadda dhinac walba laga wacyigeliyo si ay u noqoto ummad taabagasha oo taqaana danaheeda waxaa jirta siyaabo aan ku gaarayno ilaa 3 wado ayaa jirta xaruntu ay isticmaalayso si ay u gaadho bulsho noocaas oo wacyi leh waxa kamid ah forumkan maanta oo kale in ummadda la isugu yeero aqoon-yahankeeda in dheergaradkeeda culimadeeda dadkeeda wax yaqaan la isugu yeero kadibna lagu yiraahdo ka wacyigeliya ummadda wax alaala wixii aad arkaysaan oo dhibaato marba mawduuci marka taagan in la xusho marka forumada noocaan oo dhan way socon doonaan wayna badan doonaan insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynayaa dadka in la kulmiyo qodobka labaad aan ku gaari doono waxa weeye dadka dhalinyarada in la gaasimo ay cilmi baaris soo sameeyaan kadibna ay xaruntu u fududeyso inay ummadda ay la wadaagaan waxay soo heleen siyaalo far badan oo kale oo inta hoos imanaya ayaa jira marka ma doonayaan ku dheeraado waxaan doonayaa inaan idin kala dhex baxo idinka iyo maanta marti sharafteena dakatirada 4 doctor halka noogu qoran oo maaragtay isku jira dhinac walba maadiyo diiniba marka insha Allah inaan ka faa'iideysan doono ayaan rajaynayaa waxaan ku soo wareejinayaa ustaad Cabdimajid Caynte oo noo sii waday aad buu mahadsan saaxiibka Cabdullaahi Jilay haddana waxaan ku soo dhaweynayaa anoo ka codsanay aad u soo gaabiyay ereyada oran doono gudoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalkan Kenya mudane Gaxnuug oo soo dhaw هذا كان سوكابي وكعصنا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. وأنا سلام يا مركوبات كسوكاب كليات إلى مرتخرب كان ماشى سوي ماضي أدبان ومهد علينا يا xarunta ogaal oo soo qaban qaabiyeen maanta barnaamijkan aad u qurux badan markaad fiiriso xilliga ay soo bilaabeen oo aan makhraati ka ahaa iyo maanta inta u dhaxaysa oo xaqiiqdi dib aad moodo inay ka mid dhaliyeen ujeedooyinkii loo asaasay waan iniga mahad celinayaa dadka maanta meesha ku casuuban markaad fiiriso ma mudin inaan hadallo fara badan jeedino inaan dhageystayaal noqono oo cilmi badan dhuuxno yaa wanaagsan hal kelmad ma dhahayaa saamaynta ay aqoonta ku leedahay Soomaalida wax baratay waxaan jeclaan lahaa mawduucaas inuu noqdo mawduuc aad guda gashaan oo ballaaran oo isaga laftiisa la dhex dago si fiican loo lafaguro daraasaad fara badan laga sameeyo 3 bilood ama 4 bilood 5 bilood soo socda inaad mawduucaas wadaan report ka soo saartaan research halkaas uu ka bilowdo qoraalka halka aad ka soo saartaan aad nala wadaagtaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago maanta waxa meeshan laga dhihi doonana oo ogahay dadka jooga inay dad aad qaali u yihiin ku casuuman panelka inoo soo fadhiisan doona inaad wax ka document gareysaan oo noqdo wax asaas u noqda research report ka aad soo saari doontaan bilaan soo socda ee mawduucan ku saabsan intaas kadib hadal ma sii wadi doono marti sharafka meesha fadhida awgood aad iyo aad baan u mahadsantihiin waxaan jeclaan lahaa inaan aad u dhuuxo maanta wax meesha naga soo jeedin doono shukran
aad iyo aad buu mahadsan yahay gudoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed dalkan Kenya mudane Gaxnu haddana waxaan ku soo dhaweynayaa waqtiga aad nahay awadiis saaxiibkay Maxamed Nuur Shade oo daadihin doona ومعلم معنا كل كمان تنسقون بدو جديدين إنه ضاد وقيبيه تمام أقوليها كعلماء سوماليين نكون كخير جل دونا مركز سعودي حكوا عصلا إنه ستيج كي يماله سوس لما يضاد أنت كلمان قيب تقومي بسنة هذا رغم السعودي والمدن محمد بسم الله الرحمن الرحيم waxaan idinkaga mahad celinayaa ka soo qaybgalkiina wanaagsan iyo sida aad u soo aqbasheen inaad nagala soo qayb gashaan munaasabadan aan doonayno inaan uga faa'iideysano qaar ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaad idila soo dhaweysaan martida barnaamijka oo kala ah Dr. Sadiq Enow waxaan ka codsanaynaa inuu stage-ka soo fuulo sidoo kale Dr. Maxamuud Shible codsanaynaa Dr. Ibrahim Farax Bursaliid sidoo kale Dr. Abdulwahab Sheikh Abdisamed sida aad la socotaan ama aad kor ka akhrisan kartaan ama intiina ogeysiisyadu ay soo gaareen aad aragteen ama haddaba laga shanqariyay waxaan u ballansanahay galabta inaynu isla jeexjeexno oo aynu ka faa'iideysano aqoon-yahanka hortiina ka muuqda mowduucan ku saabsan saameynta ay aqoontu ku leedahay dadka bartay haddii si kale aan u niraahno saameynta ay aqoontu ku leedahay aqoon-yahanka inkastoo aan tacriifin doono ama qeexi doono waa kuma aqoon-yahan marka qaybta ugu horeysa waxaan rabaa inaan siiyo Dr. Sadiq isaga oo qaadan doona kelmad ku saabsan oo rabna inaan weydiino dabcan tacliintan sare waqti dambe ayay bilaabatay gaar ahaan dadka aan ka hadlayna Soomaaliyeed marka haddii dib aanu u laabano oo suugaanteena Soomaalida oo ah wax kasta oo lagu cabiri jiray aqoonta iyo wacyiga markaa jira haddaynu dib ugu laabano maxaynu ku qiimeyn karnaa suugaantii Soomaaliyeed ee hore sida ay aqoonta uga hadashay dadkii noocaas ahaa ee suugaanta dabcan doctorku taariikhyahan way suugaantana aad buu u yaqaanaa aqoonta ay dadka ka hadli jireen marka aynu aragno maxaan ku qiimeyn karnaa dadka aqoon-yahan ma oran karnaa waxaan rabnaa in uu doctorku oo xoogaa ka yiraahdo kusoo dhaw doctor tacriifin aqoontu waxa weeye dadkii ugu horeeyay ka hadla ee filosofiinta aqoon waxay tahay laba meel bay abaareen doodoodu ku wajahnayd taqriiban 5,000 sano horteed bay dooda dhacday bilaabatay ontologina waa cilmu mawjuudaat study of existence waxaan jira wax jira ma yihiin hadday jiraanna waxaan aqoon karo ama aan garan karo ma yihiin halkaas ka bilaabatay aqoonta markii laga reebo nabiyada ilaahay uu soo diray subhanahu wa ta'ala iyagoo culum waxyi la imaan jiray facts xeerar dhaba oo aan laga daba hadli karin bay iyagu soo gudbinayeen bani aadamku wuxuu la kufaakaco aqoonta maanta meel waxay maraysaa يعني معجزة الله أوران كرو وحواجه هو معجزة هذا ما أنت وحيهن واقع موضة رات كيف يكون يلنا يساقفك صوماليا سلا أوران كرا وحوي بني آدم بمركور نشوه وبكيت بوحة إله سبحانه وتعالى وأبوري أقولنا ويالي خلق الإنسان الرحمن خلق الإنسان علمه البيان ثم لما دحقلين وأبوركي حبنه سيودان يا قونتي بوحدة
qofkii waa wada wataa sidaa darteed waxaa la yidhaahdaa bani aadamku aqoon uma baahna waxaa aqoon u baahan dameeraha iyo iyada iyo fardaha iyo waa wax la bara qofka bani aadamka waa bakeed iswata labay markaa aqoontu noqonaysaa midna waa fidrada ilaah ku abuuray qofku inuu runsheeg noqdo anshax weeye aqooneed qofku inuu caadil noqdo anshax aqooneed qofku inuu wanaagga u hiliyo xaaraanta iyo xumaantana ka fogaado waa anshax aqooneed arintaasi waa midii rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam aqoonta kulla mawluudin yuladu fitra ama aqoontan nimankan saynististayaashaana oo culumta sayniska ka hadla iyaguna dabeecadday caqligoodii la aadaan halka kuwaan ay bulshada la aadeen caqligoodii xaggay la aadaan marka waxaa kasoo dhex baxay saynististayaal dabeecaddii wax kasoo dhex saara sidaa darteed abwaanadeennii iyo odayadeennii hore mahmahyaha iyo xikmadaha ka tegay aqoon-yahano waaweyn bay ahaayeen dunidana waa laga qiimeeyaa dadka sidaasa sida loo qiimeeyo fiisigyahanada iyo nimanka